marka buugna loo wadnahan ka naxnaa halkaasaan ka naxnaa waayo buuggii waxa aad timid aqoon kama faa'iidaysid waxba kuguma soo duulayaan dagaal baa lagu jiraa sida roodi sheegtay iska celin iska caabin iyo runtii u jawaabid oo lagu odhanayo hebel baa dawladdii duray ama hebel waxa sameeyay ka daba hadalo jawaab madasha buug baa lagu soo bandhigay buugga waxa lagaga hadlaana waa aqoon iyo cilmi iyo taariikh marka sayid buugga sidii noogu bandhigay iyo fuaad wax badan ma ka fahmay anuguna waxaan aaminsanayaa inta ay ka fahanteen buugtuna inay sidoo kale noqdaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. arrintan waa arkay gudoomiye Khalid Qodax waxaad moodaa dhalinyaro badan wixii maskaxdooda ka guuxayay inuu sheegay muddo aad u fara badan like sanado ka hor bay ahayd waqtigii anigu aan joojiyay inaan ka qayb galo madal like siyaasiyiintu isugu imanayaan amba madal waxa weeyaan buug lagu soo bandhigayo sababtuna waxay tahay waa mid ka mid ah mashaakilkan uu sheegayo gudoomiyuhu oo ah in siyaasigii markuu yimaado ama qofkii mas'uulka ah markuu yimaado madasha uu ka leexinayo ajandihii madasha yaalay like inta badan haddaynu eegno yani ururada mucaaradii muxaafidba like waxaad moodaa inuu noqday platform ay iyagu isku tuurtuuraan oo ay ka ololeeyaan mostly waxa ugu muhiimsan marka laga hadlayo aqoonta public speaking amba yani fagaara ka hadalkuna waxa weeyaan markaad meel ka hadlayso shayga lagu hayo waxa like meesha laga hadlayo kaliya ta ka hadlaya like mowduuc ka duwan ha ku hadlay waa markaad martida tahay laakiin adigu haddaad doonayso inaad hadasho oo waxaad doonayso aad ka hadasho madal soo diyaarso waayo waa laba qaab u dhaca marka laga hadlayo public speaking mar waa maraad adigu marti tahay oo sidan imika kale siyaasiyiinta iyo qolooyinkan kale inta badan waxa weeyaan loo soo casuumo marna waa mar iyaga laftigooda ay hadlayaan ama platform loo qabanayo ay doodo waxa weeyaan ku dhiibtaan marka waxa ka dhiman yacni siyaasiyiinteena inay fahmaan oo si fiican waxa weeyaan magaranaysa wax ixtiraamaan in dhalinyarada iyo bulshada ay u baahan tahay waxa madasha yaalla ay ka soo qayb galeen si ay uga faa'iideystaan kaliya teena ka hadlaan haddaanay garanayna inaanay totally kaba hadalna public speaking ka fagaara ka hadalku afar qodob buu salka ku haya kow waxa weeyaan ka hadal waxaad garanayso laba waxa weeyaan ka hadal hal mowduuc ama mowduuca meesha yaalla like haddaad marti tahay mowduuca laga hadlayo ku khasbantahay inaad ka hadasho haddaanad ka hadli karin inaad hadasho maaha haddii aad hadlayso mowduuca aad ka hadlayso adigu si gaara marti lagu yahayna waa inaanad mowduuca ka bixin qodobka saddexaad waxa weeyaan waa in aad si fiican u garanaysaa kala doorashada yacnihii oraahda amba waxa weeyaan kelmadaha taas oo saameyn ku yeelan doonta qulubta cidda aad la hadlayso qodobka afraadna waxa weeyaan fagaara ka hadalku waa wax ka weyn xifaaltan iyo wax weeyaan afkay adag waana wax lagu gudbiyo aqoon dadku inta badan markay buugaagta kasoo qayb galayaan ay kulanada imanayaan waxay kusoo talagalaan inay wax kasoo faa'iideystaan ugu yaraan ama buugga yacnihii soo iibsadaan marka waxaan aad iyo aad siyaasiyiinta ugu dhiirigelinayaa in sida gudoomiye waxa weeyaan Khalid ay ku dadaalaan inay ka hadlaan mowduuca meesha yaallo keliyata oona ka hadal like wax ka baxsan ama iyagoo ajinta ay wataan haddii ay taa doonayaan waa inay samaystaan oo ay tagaan platformo loogu talagalay si ay iyagu ugu doodaan kulley dhalinyaro badanna arrinka way la qabtaan waan filayaa